Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo madaxweyne Sheekh Shariif hadalkiisii baan rabaa inaan ka hadlo. Haddaan nagu cusubtiin subscribe iyo like noo saara. Haddaan ku sii socdo Sheekh Shariif hadalkiisii ayaan rabaa inaan soo daayo bal dhageysta. shalay anaga madaxweyne farmaajo marka aan mucaaradeen qabiil ma ahay aragti siyaasadeed haddana qabiil ma weliba nasiib darro wax xukuumaddan hadda jirta yani xilliyada dambe waxaa looga shaqaynaya qabyaaladda si aan fiicnayn war dalkan qabiil waa u burburay waa lagu aaminay dowladda lagugu aaminay maxaa qabyaalad uga shaqaynaysaa qabiil meesha uu ku soo dhammaana waa naqaanaaye ما dadka ixtiraamtid oo naftaada ixtiraamtid oo wixii lagu dhibay ixtiraamtid oo ummadnimada ixtiraamtid shalay marka mucaaradka aan madaxweyne farmaajo waxaan dhigi jirnay lacag ku bixiyaa wariyaasha dadka inay caayaan dad ma taqaana lacag siiya maxaa la sameeyaa shalay wixii aad diidaneed ma hadda adiga samaynaysaa shalay laga qaadana maxaa uga baahan tahay inaad dad caayad hadda ya qabiil iyo dad in la caayo maxaa looga baahan yahay dadkan wuxuu u baahan yahay in la isku soo dhaweeyo qof ka maqan inaad doonato waxaan ku soo gabagabaynaa nin nabadoona oo reer bay ah oo cabdigaruuna lijal mase garuunka laftigiisa ma aqaano waxaa la yidhi laba qabiil oo daris mid uu hogaaminaya isaga marka waxaa laga dilay dadaa laga dilay waana xilli abaara macnaha waxaan rabaa waxa fiican sida ay macno u sameynaa inaan sheego meesha dadka marka laga dilay tolkiisoo la tashado waxuu dhahaa laba neef oo geela kiisoo qabta geelisoo kaxaystay dadka u disheen iyo duugtooda waa kuwan imankiina waxay isleeyihiin soo qaadaan waa isfiiriyaan maxaa tiri waxuu dhahaa marka sheeko mataqaan caamos waxuu dhahay walaal jecel u qaata fulanimo u qaata waxa rabteen u qaata waxaa la sheegaa dagaalkii maalinkaasoo istaagay ilaa haddana waa taagan yahay nabadii ku wada noolin dadka macnaha waxaan u wadaa tanaasulka iyo dad isu jiididda aa macno samaynayso soomaaliya meeshaan waxaa soo gaarsiiya waa samayn karaa madaxweynaha waa samayn karaa inuu ilaa dastuurka waa la ansixi laakiin ma keenaa dastuur dhaqan kale ma noqonaa waxaan aaminsanahay inuusan noqonin sida hadda uu ku socdo dastuur ma ku noqonayo baarlamaanka hadda doodaa socota hadda uga batay 60 aan tagto waa wada ogtiin aan malaynaa maxaa la yidhi maalin arkaba procedureka la bedela waxaa la dood furanaa jirta marka doodda maalintii koobaad ba haddii oo ay yimaadeen kooram lama baahna inta ku qaranta waxaas saacad kasta oo mar kasta oo baarlamaanku qabsoomayo waxaa loo baahan yahay kooram meel ay ku qoran tahay 10 qof 20 qof kooram oo dastuur ka shaqeyn karta ma jirto dastuurkuna waxa ugu muhiimsan marka waxaan rabnaa inaan ugu yeerno dawladda inay ixtiraamaan dastuurka inay aqliga dadka Soomaalida ixtiraamaan inay wada jirkooda ixtiraamaan inay mas'uuliyadooda ixtiraamaan aad iyo aad u mahadsantiin Sheekh Shariif wuxuu sheegay runtiis wuxuu yiri xilligii farmaajo waxaan ku dhaleecayn jirnay inuu wiilal lacag siiyo oo u hadla marka wixii aan farmaajo ku dhaleecayn jirnay oo dhan dowladdaana ka dana samaysa wuxuu kaloo yiri Sheekh Shariif dastuurkan hadda haddii la sameeyo xataa uu sameeyo xageebu ka shaqeynaya waa runtiis meel ka shaqeynaya la garamayo wax walba waa diiday madaxweyne xasan anuu xasan waxaan oran lahaa jawhar kama taliyo beledweyne afgooye kama taliyo anuu waxaan oran lahaa madaxweyne xasan wuxuu doonayaa inuu dowladda burburiyo odayaal soo direen waxay dhahayeen madaxweyne xasan wuxuu xuduudiye hawiye ayuu ilaaliyey waan taageersanaa marka barnaamijka maanta halkaasaan uga baxaya daawashadiina oo ku mahadsantiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
مدحوينه الشيخ شريف شيخ أحمد مدحوينها جبل Stop button. Expand speaking bar. Expand speaking bar button. وزبيعي أعطي أيام Stop button. Maryland AV 20. Duration 2. Stop button.